أصحابي صومالي ده ماركت صومالي ده عادي معه لوق وحال إيسو ديجو يا كليبيرو ورئيس تيجي تسمع لك صوت شري marka waxay soo qorayaan waxay 22 naag 22 naagood oo caana allahayaa soo socdaan ay dhahoosay maama tusmay waxay goorma la soo deynaa hees miya hees new song miya oo video cusub miya oo soo baxayo oo shimay la soo deynaa Somali waa fadeex u diyaar waayba dad waxa waayba you guys life kala dhan iyo qurux iyo sheeg asturnaan iyo sharaf ma raadisiin fadeexa raadisiin ya subhanallah wax laga yaaba ah mujtamac dhan dad dhan bulsho dhan oo raadinayso inay qof wax lid ku ah arkaan wax xun oo qof kale xumaantiis inay arkaan calashan jecel say u badan yihiin ka hadlo yaadis wala say u badan yihiin asaasade anaga inta nadiifka oo yar dadka yar anaga waa dadka jecel inay ma aragtay wax xun arkin ama aan interest ku ahayn dad yar waaye marka majority aan ka hadlona lambarka badan aan sheegona calashan why interested ugu yihiin inay xumaan arkaan raadi inaa wanaag aragto raadi inaa qurux aragto raadi inaa sharaf iyo karaamo qof leeyahay aragto hadda ka hor waxaan maqlay dhowr sano ka hor 10 sano ka hor ma eed waxa la igu yiri afarta qof oo Soomaaliya meel isugu imaata hal qof oo waalan war amay run tahay hal mid marka idin sheega kullay wax kasta mar baa laga ilbaxaa wax kasto mar baa laga ilbaxaa waxaan rajaynayaa inay Soomaalidu ka ilbaxdo inay interest ku noqdaan dhaqan saan hadda interest ugu yihiin xumaan leh in la raadiyo ama daraamo la kariyad gareeyo ina interest ku noqotaan waa wax lala yaabo waay alsha xumaan interest ku noqotid wax lala yaabo ay ku qabato bun amal ku qabato laakiin waxaan idin sheegaa waxaan waa iska dhamaahayaan si kasto wax u qaldan yihiin si kasto wax u jiraan waa laga gudbaa waan iska dhamaahayaan sababta mar kasto sababta ceeb qof leeyahay loo keenayo ama qof caana dhibaatadiisa au arkaysaan ma idin sheegaa sababta mar kasto dadka caanka ah xumaantooda iyo ceebtooda ay Soomaalidu u raadiso ama mar kastaba qof fanaana ama qof bulshada magac ku leh in ma aragta la yiraahdo waxba laga hayaa waxba saan uu yahay kan uu yahay in la yiraahdo maxaa koos garay ma taqaanin idinku way dhacdaa oo laakiin sababta isma weydiisaan sababta waxa waaye inaa interest ku tihiin la ogyahay waxa la ogyahay inaa interest ku tihiin inaa aragtaan qof famous oo Soomaalida laga dhex yaqaano inaa ceebtiisa aragtaan على الشانفيريا أولاً وحبل اللي يدخل ليفين حبنا اللي يدخل ليفين ضي أيضاً حبنا اللي يدخل ليفين وحات كسترة كان ستين وتقدر ستين إن الحماة تدك أتراديسان عيب تدك إن أركتانات شعلاتين أيضاً مرافعات كلا اللي يدخل قبين مركز that's why دتك حماة الراديو أما دتك درجة وحي الراديو يعني أديك يعني شربك وقوم قيد إذن كواي marka maskaxdayda yar ka shaqeysiyay waxa ii soo baxday this people oo aan ka dhalanay they feel boring ku dareemoyaan arrinta tusmaay ma aragtay way ka caajiseen they feel boring u yihiin caajis waxay hadda marka arkeen klibkan yar oo la carcaraayo 12 dumara 12 naagood oo caana allahaaya amal maxaa marka ka helay hadayba jirta xataa oo lahayo naag Soomaaliya caana oo la afuufo waayo ama nin Soomaaliya caana wax afuufo waayo waxa interest ugu noqonaysiin ama qof dharra ama qof dayacan oo caan oo kala daadsan wuxuu ku soo kordhiyay mi sheegi kartiin ani
ma ii sheegi kartiin haddaa caqli leedihiin in qof soomaaliya oo caana oo walaalkiina ceebtiisa la raadiyo interestigiinaa keenay fucking rabitaankiinaa keenay inay interest ku noqdaan dhaqan saan hadda interest ugu yihiin xumaan leh in la raadiyo ama daraamo la kariyad gareeyo inaa interest ku noqotaan waa wax lala yaabo waayo calsha xumaan interest ku noqotid waa wax lala yaabo ay ku qabato bun camal ku qabato laakiin waxaan idiin sheegaa waxaan waa iska dhamaahayaan si kastoo wax u qaldan yihiin si kastoo wax u jiraan waa laga gudbaa waana iska dhamaahayaan sababta mar kasto sababta ceeb qof leeyahay loo keenayo ama qof caana dhibaatadiisa aa u arkaysaanna ma idin sheegaa sababta mar kasta dadka caanka ah xumaantooda iyo ceebtooda ay soomaalidu u raadiso ama mar kastaba qof fanaana ama qof bulshada magac ku leh in ma aragta la yiraahdo waxbaa laga hayaa waxbaa saanuu yahay kanuu yahay in la yiraahdo maxaa koos garay mataqaaniin idinku way dhacdaa uun laakiin sababta isma weydiisaan sababta waxa waaye inaa interest ku tihiin la ogyahay waxaa la ogyahay inaa interest ku tihiin inaa aragtaan qof famous oo soomaalida laga dhex yaqaano inaa ceebtiisa aragtaan calashaan fiiriya awalan waxba laydinku dheefayn xabad hadda laydikuma dheefaynaday ayadoon xabadna laydinku dheefayn aad waxaad extra keensateen ood ku darsateen inaad xumaanta dadka aad raadisaan ceebta dadka inaad aragtaanaad jeclaateen ayadoon dee munaafacaad kala dhan laydinku qabin marka that's why dadka xumaanta raadiyo ama dadka dabagala waxay wax u raadiyayaan u adeegayaan sababka ugu maqan yihiin idinka waay marka maskaxdayda yar ka shaqaysiiyey waxaa ii soo baxday this people oo aan ka dhalanay they feel boring ay ku dareemoyaan arrintii tusmaayo ma aragtay way ka caajiseen they feel boring aaday boring u yihiin caajis waxay hadda marka arkeen kilibkan yaroo lala carcararaayo 11 dumara 11 naagood oo caana aa lahaayaa camal maxaa marka ka helaya haddayba jirto xataa oo lahaayo naag soomaali oo caana oo la afuufo waayo ama nin soomaali oo caana wax afuufo waayo maxaa marka ka helaya haddayba jirto xataa oo lahaayo naag soomaali oo caana oo la afuufo waayo ama nin soomaali oo caana wax afuufo waayo asxaabay soomaalida ma aragta soomaalida caadi ma ah luuqa waxaa la ii soo dhigoyaa kilib yar oo waraysigii tusmo laga soo jaray marka waxay ii soo qorayaan farxiyo 21 naagood oo caana aa lahaayaa soo socdaanay dhahoosaay maama tusmay farxiyoy goormaa la soo daynaa hees miya hees new song miya oo video cusub miya oo soo baxooyo shimee la soo daynaa soomaali waaba fadeexad u diyaar waayba dad waxaa waayba you guys life kala dhan iyo qurux iyo ii sheeg asturnaan iyo sharaf ma raadisiin fadeexa raadisiin ya subxaan allah waxaa wax laga yaaba ah mujtamac dhan dad dhan bulsho dhan oo raadinayso inay qof wax lid ku ah arkaan wax xun oo qof kale xumaantiis inay arkaan calashaan jecel say u badan yihiin ka hadlooyaade Soomaaliya say u badan yihiin asaasade anaga inta nadiifka oo yar dadka yar anaga waa dadka jecel inay ma aragtay wax xun arkin ama aan interest ku ahayn dad yar waaye marka majority aan ka hadloonaa lambarka badan aan sheegoonaa
علشان واي انترستن ugu yihiin inay xumaan arkaan raadi inaa wanaag aragto raadi inaa qurux aragto raadi inaa sharaf iyo karaamo qof leeyahay aragto hadda ka hor waxaan maqlaayay dhowr sano ka hor 10 sano ka hor ma eed waxa la igu yiri afarta qof oo Soomaaliya meel isugu imaata hal qof waalan war amay run tahay hal mid marka idin sheega kullay wax kasta mar baa laga ilbaxaa wax kasta mar baa laga ilbaxaa waxaan rajaynayaa inay Soomaalidu ka ilbaxdo inay interest ku noqdaan dhaqan saan hadda interest ugu yihiin xumaan leh in la raadiyo ama daraamo la kariyad gareeyo ina interest ku noqotaan waa wax lala yaabo waay alsha xumaan interest ku noqotid wax lala yaabo ay ku qabato bun camal ku qabato laakiin waxaan idin sheegaa waxaan waa iska dhamaahayaan si kastoo wax u qaldan yihiin si kastoo wax u jiraan waa laga gudbaa waan iska dhamaahayaan sababta mar kasto sababta ceeb qof leeyahay loo keenayo ama qof caana dhibaatadiisa au arkaysaan ma idin sheegaa sababta mar kasto dadka caanka ah xumaantooda iyo ceebtooda ay Soomaalidu u raadiso ama mar kastaba qof fanaana ama qof bulshada magac ku leh in ma aragta la yiraahdo waxba laga haayaa waxba saan uu yahay kan uu yahay in la yiraahdo maxaa koos gareey ma taqaanin idinku way dhacdaa oo laakiin sababta isma weydiisan sababta waxa waay ina interest ku tiina la ogyahay waxa la ogyahay ina interest ku tihiin ina aragtaan qof famous oo Soomaalida laga dhex yaqaano ina ceebtiisa aragtaan على الشانفيريا أولاً وحبلي دكوا ديفين حبضة اللي دكوا ما ديفين ضي أيضاً حبضنا اللي دكوا ديفين واحد إكسترا كان ستين وتقدر ستين إن الحماة تضلك أتراديسان عيب تضلك إن أركتانات شعلاتين أيضاً مرافعات كلا اللي دكوا قبين مركز that's why ضدك حماة الراديو أما ضدك درجة وحول الراديو يعني أديك يعني شربك وقوم قيد إذن كواي marka maskaxdayda yar ka shaqeysiyay waxa ii soo baxday this people oo aan ka dhalanay they feel boring ku dareemoyaan arrinta tusmaay ma aragtay way ka caajiseen they feel boring u yihiin caajis waxay hadda marka arkeen klibkan yar oo la carcaraayo 12 dumara 12 naagood oo caana allahaaya camal maxaa marka ka helay hadayba jirta xataa oo lahaayo naag Soomaali oo caana oo la afuufo waayo ama nin Soomaali oo caana wax afuufo waayo waxa interest ugu noqonaysiin ama qof dharra ama qof dayacan oo caan oo kala daadsan wuxuu ku soo kordhiyay ma sheegi kartiin ani ma sheegi kartiin hadda aqli leedihiin in qof Soomaali oo caana oo walaalkiina ceebtiisa la raadiyo interestigiina keenay fucking rabitaankiina keenay inay interest ku noqdaan dhaqan saan hadda interest ugu yihiin xumaan leh in la raadiyo ama daraamo la kariyad gareeyo ina interest ku noqotaan waa wax lala yaabo waay alsha xumaan interest ku noqotid wax lala yaabo ay ku qabato bun camal ku qabato laakiin waxaan idin sheegaa waxaan waa iska dhamaahayaan si kastoo wax u qaldan yihiin si kastoo wax u jiraan waa laga gudbaa waan iska dhamaahayaan sababta mar kasto sababta ceeb qof leeyahay loo keenayo ama qof caana dhibaatadiisa au arkaysaan ma idin sheegaa sababta mar kasto dadka caanka ah xumaantooda iyo ceebtooda ay Soomaalidu u raadiso ama mar kastaba qof fanaana
ama qof bulshada magac ku leh in ma aragta la yiraahdo waxba laga haayaa waxba saanu yahay kanuu yahay in la yiraahdo maxaa koos gareeyay mataqaanin idinku way dhacdaa oo laakiin sababta isma weydiisaan sababta waxa waaye inaa interest ku tiina la ogyahay waxa la ogyahay inaa interest ku tihiin inaa aragtaan qof famous oo Soomaalida laga dhex yaqaano inaa ceebtiisa aragtaan علشان فيريا أولاً وحبل يدك ليفين حبنا اللي يدك ما ليفين ضي أيضاً حبنا اللي يدك ليفين وحات إكسترا كان ستين وتقدر ستين إن الحماة تضلك أتراديسان عيب تضلك إن الأركتانات شعلاتين أيضاً مرافعات كلا اللي يدك قبين مركز that's why ضدك حماة الراديو أما ضدك درجة وحي الراديو يعني أذيك يعني شربك وما قيد إذن كواي marka maskaxdayda yar ka shaqeysiyay waxa ii soo baxday this people oo aan ka dhalanay they feel boring ku dareemoyaan arrinta tusmaay ma aragtay way ka caajiseen they feel boring boring u yihiin caajis waxay hadda marka arkeen klibkan yar oo la carcaraayo 12 dumara 12 naagood oo caana allaha عمل maxaa marka ka helay hadayba jirta xataa oo lahaayo naag Soomaaliyo caana oo la afuufo waayo ama nin Soomaaliyo caana wax afuufo waayo waxa asxaabay Soomaalida ma aragta Soomaalida caadi ma ah luuqa waxa la ii soo dhigoyaa klib yar oo waraysiga tusma laga soo jaray marka waxay ii soo qorayaan farxiyo 22 naag 22 naagood oo caana allahayaa soo socdaan ay dhahoosay maama tusmay farxiyo goorma soo deeyna hees new song miya oo video cusub miya oo soo baxooyo oo gooshi la soo deeyna Somali waa fadeexad u diyaar waayba dad waxa waayba you guys life kala dhan iyo qurux iyo sheeg asturnaan iyo sharaf ma raadisiin fadeexa raadisiin ya subhanallah wax laga yaaba mujtamac dhan dad dhan bulsho dhan oo raadinayso inay qof wax lid ku arkaan wax xun oo qof kale xumaantiis inay arkaan calashan jecel say u badan yihiin ka hadlooyada Soomaaliya say u badan yihiin asaasada anaga inta nadiifka oo yar dadka yar anaga waa dadka jecel inay ma aragtay wax xun arkin ama aan interest ku ahayn dad yar waaye marka majority aan ka hadloona lambarka badan aan sheegona calashan why interested ugu yihiin inay xumaan arkaan raadi inaa wanaag aragto raadi inaa qurux aragto raadi inaa sharaf iyo karaamo qof leeyahay aragto hadda ka hor waxaan maqlay dhowr sano ka hor 10 sano ka hor ma eed waxa la igu yiri 4 qof oo Soomaaliya meel isugu imaatay hal qof oo waalan war amay run tahay hal mid marka idin sheega kullay wax kasta mar baa laga ilbaxaa wax kasto mar baa laga ilbaxaa waxaan rajaynayaa inay Soomaalidu ka ilbaxdo inay interest ku noqdaan dhaqan saan hadda interest ugu yihiin xumaan leh in la raadiyo ama daraamo la kariyad gareeyo ina interest ku noqotaan waa wax lala yaabo waay calsha xumaan interest ku noqotid wax lala yaabo ay ku qabato bun camal ku qabato laakiin waxaan idin sheegaa waxaan waa iska dhamaahayaan si kasto wax u qaldan yihiin si kasto wax u jiraan waa laga gudbaa waan iska dhamaahayaan sababta mar kasto sababta ceeb qof leeyahay loo keenayo ama qof caana dhibaatadiisa u arkaysaan ma idin sheegaa sababta mar kasto dadka caanka xumaantooda iyo ceebtooda ay Soomaalidu u raadiso ama mar kastaba qof fanaan
ama qof bulshada magac ku leh in ma aragta la yiraahdo waxbaa laga hayaa waxbaa saanu yahay kanuu yahay in la yiraahdo maxaa koos gareeyay mataqaanin idinku way dhacdaa uun laakiin sababta isma weydiisaan sababta waxa waaye inaa interest ku tihiin la ogyahay waxaa la ogyahay inaa interest ku tihiin inaa aragtaan qof famous ah oo Soomaalida laga dhex yaqaano inaa ceebtiisa aragtaan على الشانفيريا أولاً وحبل يدكوا ديفين حبنا اللي يدكوا ما ديفين ضي أيضاً حبنا اللي يدكوا ديفين وحات إكسترا كان ستين وتقدر ستين إن الحماة تضلك أتراديسان عيب تضلك إن الأركتانات شعلاتين أيضاً مرافعات كلا اللي يدكوا قبين مركز that's why تضلك حماة الراديو أما تضلك درجة وحي وحور الراديو يعني أديك يعني شربك وما قيد إذن كواي marka maskaxdayda yar ka shaqeysiyay waxa ii soo baxday this people oo aan ka dhalanay they feel boring ku dareemoyaan arrinta tusmaay ma aragtay way ka caajiseen they feel boring u yihiin caajis waxay hadda marka arkeen klibkan yar oo la carcaraayo 12 dumara 12 naagood oo caana aan lahaaya camal maxaa marka ka helay hadayba jirta xataa oo lahaayo naag Soomaaliya oo caana oo la afuufo waayo ama nin Soomaaliya oo caana wax afuufo waayo waxa interest ugu noqonaysiin ama qof dharra ama qof dayacan oo caan oo kala daadsan wuxuu ku soo kordhiyay ma sheegi kartiin ani ma sheegi kartiin hadda aqli leedihiin in qof Soomaaliya oo caana oo walaalkiina ceebtiisa la raadiyo interestigiina keenay fucking rabitaankiina keenay إن interest كل نقطان بقى صان هذا interest ويهين حمان له إن الراديو أما الدراما اللي كريت قريه إن interest كل نقطان وواحد لا يابا واي علشان حمان interest كل نقطة وواحد لا يابا يكون قبضه بن عمل هو قبضه لكن حدين شيء جا وحنا واسكت ما هايان سكستو حقل ديهين سكستو وحوشيران وهلا جود بوان اسكت ما هايان sababta markasto sababta ceeb qof leeyahay loo keenayo ama qof caana dhibaatadiisa au arkaysaan ma idin sheegaa sababta markasto dadka caanka ah xumaantooda iyo ceebtooda ay Soomaalidu u raadiso ama markastaba qof fanaana ama qof bulshada magac ku leh in ma aragta la yiraahdo waxbaa laga hayaa waxbaa saanu yahay kanuu yahay in la yiraahdo maxaa koos gareeyay mataqaanin idinku way dhacdaa uun laakiin sababta isma weydiisaan sababta waxa waaye inaa interest ku tihiin la ogyahay waxaa la ogyahay inaa interest ku tihiin inaa aragtaan qof famous ah oo Soomaalida laga dhex yaqaano inaa ceebtiisa aragtaan على الشانفيريا أولاً وحبل يدكوا ديفين حبنا اللي يدكوا ما ديفين ضي أيضاً حبنا اللي يدكوا ديفين وحات إكسترا كان ستين وتقدر ستين إن الحماة تضلك أتراديسان عيب تضلك إن الأركتانات شعلاتين أيضاً مرافعات كلا اللي يدكوا قبين مركز that's why تضلك حماة الراديو أما تضلك درجة وحي وحور الراديو يعني أديك يعني شربك وما قيد إذن كواي marka maskaxdayda yar ka shaqeysiyay waxa ii soo baxday this people oo aan ka dhalanay they feel boring ku dareemoyaan arrinta tusmaay ma aragtay way ka caajiseen they feel boring u yihiin caajis waxay hadda marka arkeen klibkan yar oo la carcaraayo 12 dumara 12 naagood oo caana aan lahaaya camal maxaa marka ka helay hadayba jirta xataa oo lahaayo naag Soomaaliya oo caana oo la afuufo waayo ama nin Soomaaliya oo caana wax afuufo waayo waxa asxaabay Soomaalida ma aragtay Soomaalida caadi ma ah
luuqa waxaa la iisoo dhigoyaa clip yar oo waraysigii tusmo laga soo jaray marka waxay iisoo qorayaan farxiyo 21 naag 21 naagood oo caana aan lahaayaa soo socdaanay dhahoosaay maama tusmay farxiyo goorma la soo deynaa hees miya hees new song miya oo video cusub miya oo soo baxooyo oo shimay la soo deynaa Soomaali waa fadeexad u diyaar waayba dad waxa waayba you guys life kala dhan iyo qurux iyo sheeg asturnaan iyo sharaf ma raadisiin fadeexa raadisiin ya subhanallah wax laga yaaba ah mujtamac dhan dad dhan bulsho dhan oo raadinayso inay qof wax lid ku ah arkaan wax xun oo qof kale xumaantiis inay arkaan calashan jecel say u badan yihiin ka hadlooyaad Soomaaliya say u badan yihiin asaasada anaga inta nadiifka oo yar dadka yar anaga waa dadka jecel inay ma aragtay wax xun arkin ama aan interest ku ahayn dad yar waaye marka majority aan ka hadloonaa lambarka badan aan sheegoonaa calashan why interest ugu yihiin inay xumaan arkaan raadi inaa wanaag aragto raadi inaa qurux aragto raadi inaa sharaf iyo karaamo qof leeyahay aragto hadda ka hor waxaan maqlaayay dhowr sano ka hor 10 sano ka hor ma eed waxaa lagu yiri 4 qof oo Soomaaliya meel isugu imaata hal qof oo waalan war ama run tahay hal mid marka idin sheegaa kullay wax kasta mar baa laga ilbaxaa wax kasta mar baa laga ilbaxaa waxaan rajaynayaa inay Soomaalidu ka ilbaxdo inay interest ku noqdaan dhaqan saan hadda interest ugu yihiin xumaan leh in la raadiyo ama daraamo la kariyad gareeyo ina interest ku noqotaan waa wax lala yaabo waay calsha xumaan interest ku noqotid wax lala yaabo ay ku qabato bun camal ku qabato laakiin waxaan idin sheegaa waxaan waa iska dhamaahayaan si kastoo wax u qaldan yihiin si kastoo wax u jiraan waa laga gudbaa waan iska dhamaahayaan sababta markasto sababta ceeb qof leeyahay loo keenayo ama qof caana dhibaatadiisa u arkaysaan ma idin sheegaa sababta markasto dadka caanka ah xumaantooda iyo ceebtooda ay Soomaalidu u raadiso ama markastaba qof fanaana ama qof bulshada magac ku leh in ma aragta la yiraahdo waxba laga haayaa waxba saan uu yahay kan uu yahay in la yiraahdo maxaa koos garay ma taqaanin idinku way dhacdaa oo laakiin sababta isma weydiisaan sababta waxa waaye inaa interest ku tiina la ogyahay waxa la ogyahay inaa interest ku tihiin inaa aragtaan qof famous oo Soomaalida laga dhex yaqaano inaa ceebtiisa aragtaan calashan fiiriya awalan waxba leeyahay dheefeen xabada leeyahay kuma dheefeenaday ayadoon xabadna leeyahay ku dheefeen aad waxaad extra keensateen oo ku darsateen inaad xumaanta dadka aad raadisaan ceebta dadka inaad aragtaan aad jeclaateen ayadoon munaafacaad kala dhan leeyahay ku qabin marka that's why dadka xumaanta raadiyo ama dadka daba gala waxay wax u raadiyayaan u adeegayaan sababka ugu maqayid idinka waa marka maskaxdayda yar ka shaqeysiyay waxa ii soo baxday this people oo aan ka dhaladnay they feel boring ku dareemoyaan arrintii tusmaay ma aragtay way ka caajiseen they feel boring boring u yihiin caajis waxay hadda marka arkeen klibkan yar oo la carcaraayo 12 dumara 12 naagood oo caana aan lahaaya camal maxaa marka ka helay hadayba jirta xataa oo lahaayo naag Soomaali oo caana oo la afuufo waayo ama nin Soomaali oo caana wax afuufo waayo waxa interest ugu noqonaysiin ama qof dharra ama qof dayacan oo caan oo kala daadsan wuxuu ku soo kordhiyay ma sheegi kartiin ani ma sheegi kartiin hadda aqli leedihiin
in qof Soomaaliya oo caan oo walaalkiina ceebtiisa la raadiyo interestigiina keenay fucking rabitaankiina keenay in interest ku noqdaan dhaqan saan hadda interest ugu yihiin xumaan leh in la raadiyo ama daraamo la kariyad gareeyo ina interest ku noqotaan waa wax lala yaabo waay calsha xumaan interest ku noqotid wax lala yaabo ay ku qabato bun camal ku qabato laakiin waxaan idin sheegaa waxaan waa iska dhamaahayaan si kastoo wax u qaldan yihiin si kastoo wax u jiraan waa laga gudbaa waana iska dhamaahayaan sababta mar kasto sababta ceeb qof leeyahay loo keenayo ama qof caana dhibaatadiisa u arkaysaana ma idin sheegaa sababta mar kasto dadka caanka ah xumaantooda iyo ceebtooda ay Soomaalidu u raadiso ama mar kastaba qof fanaana ama qof bulshada magac ku leh in ma aragta la yiraahdo waxba laga hayaa waxba saanu yahay kanuu yahay in la yiraahdo maxaa koos gareey ma taqaanin idinku way dhacdaa oo laakiin sababta isma weydiisan sababta waxa waay ina interest ku tiina la ogyahay waxa la ogyahay ina interest ku tihiin ina aragtaan qof famous oo Soomaalida laga dhex yaqaano ina ceebtiisa aragtaan ala Shanfiria awalan waxba leedku dheefeen xabada leedku ma dheefeenaday ayadoon xabadna leedku dheefeen aad waxaad extra keensateen oo ku darsateen inaad xumaanta dadka aad raadisaan ceebta dadka inaad aragtaan aad jeclaateen ayadoon raafacaad kala dhan leedku qabin marka that's why dadka xumaanta raadiyo ama dadka daba gala waxay wax u raadiyayaan u adeegayaan sababka ugu maqan yihiin idinka waay marka maskaxdayda yar ka shaqeysiyay waxa ii soo baxday this people oo aan ka dhalanay they feel boring ay ku dareemoyaan arrinta tusmaay ma aragtay way ka caajiseen they feel boring boring u yihiin caajis